ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan u mahadnaqayaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka saxaafadda madaxa bannaan iyo shacbigan qiimaha badan leh ay ugu soo dhaweeyay caasimadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntaad soo dhaweyseen run ahaantii waxa weeyadoo maalin rabadaana oo dadku iska tabcaansan yahay waxa weeyaan dad in badan soo jeeday oo isugayey oo wakhtigooda qaaligaa u soo huray inay soo dhaweeyaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inkastaana beryaha anugu kamaradaha iyo aan ka dhuumanayay oo aanan aad iyo aad hadalka ugu badnayn oo aad iyo aad uga taxafudayey haddana maadaama de shacbigaa uu ku yimaado oo kaa hor yimaado ku soo qiimeeyo inaad kelmad mahadnaqa tidhaahdo waad mudan tihiin in laydin yaadoo laydin mahadnaqo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dee kolley hawlaha isugayana waan garanayaa insha allahu tacaala si deggan oo miisaan leh oo haddii aan laba leeyahay wadatashi leh oo qaybaha bulshada oo dhan leh annagu madax dhaqameedkaygu waxaannu ku shaqaynaa iraadatu shacab shacabku wuxuu doonayo ayaannu u go'aaminaa ugu ducaynaa iraadatu shacbi baannu ku shaqaynaa dusha waxba kagama keenno waxa shacbigu doonayo insha allahu tacaala ay doonayaan inay qabsadaan iyo aayahooda iyo taladooda iyo midnimadooda inaannu toosinno unbay tahay hadal badanna kolley maadaama ay cadceed tahay aniguna aan iska daallanahay oo kolley qofka imaaraad ka yimaada habeenoo dhan buu soo jeedaa ma odhanayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum magacaygu waa betri koosaar su'aal baan jeclay inaan ku weydiiyo deegaanadii aad ka soo jeeday waxa lagaga dhawaaqay shir oo la leeyahay shirarkaana waxaa kala hogaaminaya wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka hore arrimaha dibadda dawladdii daahir rayaale cabdilaahi maxamed ducaale shirkaas oo dad badan ina ay sugayaan weedhaadaad u ka tiraaho dhinaceed raacsanta arrinkaas arrin meel ka dhaca weeye wax alla wax ka jiraana ma jiraan wasiirro ishaya iyo siyaasiyiin ishaysa iyo siyaasiyiin beesha ku loolamaysa iyo ku legdamaysa ma jirto reerku isagaa inuu shiro iyo inuu tashado ay ka soo gooday iyo isagaana wata hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday dadkii dalka jooga tahay hadday qurba jooga tahay wayna isku waafaqsan yihiin wax dhibaataana ma jiraan wax siyaasaduna waa waxaannu ka dheeraanayno annagu weeye waa arrin dhaqan waa arrin horumarineed waxaasunbaa laga hadlayaa sheekadaasi badri oo adeer waaba igu cusub shirkan idigu aad qorshayseen doorashada ma ka soo horeynaya mise dib uga dhacay saxaafaddu miyay sharxan tahay siyaasiyiinta ku kala hirdimaya xisbiga kulmiye iyo wadani waxaa jira dhalinyarta ilaa xalay ilaa habeen hore iyaguna laftigoodu ka hadlayay miidiyaha shirkay qabanayaan iyo adigoo la leeyahay boqolka laftigiisa isaguna wuxuu ku jiraa xagga oolaha gacanta xisbiga cudow oo ilaa iyo khaatma ah ba arrimahan maxaa sababay laga yaabaa inaad laftigeedu arrimaha ay keenayaan khilaafka meesha waa cid moolay ku jirtaa